casharkan waxaan ku baran doonaa solving quadratic equations by factoring. waxaan ku baran doonaa sida loo xaliyo quadratic equationka adigoo factor garaynaya. hadda equationkan ama isla egtaan baan xalinaynaa. equationka dhankan waxay ka tahay 0, dhankan midig waxay ka tahay 0, dhankan bidixna waa inay ka ahaataa 0 si aan u xalino equationkan. waxaan ka wadaa si ay equationkan run u noqoto ama sax u noqoto. marka ugu horeysa waxaa subinaysaa dhankan waxay ka tahay equationka dhanka bidix trinomial ayay ka tahay. marka trinomialka ayaad factor garaynaysaa. marka kanoo kale x square plus 7x plus 12 haddii aan factor garayno muxuu noqonayaa x lagu daray waa maxay laba lambar oo markii isku dhufto noqda 12 markii isku darana noqda 7. labadaas lambar waa 3 iyo maya 3 ma ahane kaadi waa 3 iyo 4 3 marka ku dartid 4 waa 7 marka isku dhuftidna waa 12. marka x sadana 4 qoro wuxuu la mid yahay eber. marka equationkan x baan xalinaynaa waxay tahay marka maadaama equationka inta eber ka tahay waa inay x-na dhankan equationka dhankan eber u ka noqdaa ma og tahay. marka hadda bal u fiirso waa maxay lambar haddii lagu daro 3 ka dhigaya meeshaan eber. lambar markii lagu daro 3 meeshaan ka dhigaya eber waa maxay? waa negative 3 weeye. marka x waxay la mid tahay negative 3 sababtoo ah negative 3 hadaa ku dartid 3 eber baa soo baxaya. ama aad qoranaysaa or baad qoranaysaa or hadda bal u fiirso x waa maxay lambar haddii aan x ku darno noqonaya waa maxay lambar haddii aan 4 ku darno noqonaya eber. lambarkaas waa negative 4 marka waan hubin karnaa equationkan. marka labada xal wuxuu yahay x waxay la mid tahay negative 3 ama x waxay la mid tahay negative 4. marka waan hubinaynaa waxaan subinaynaa negative 3 baan waxaan ku bedelaynaa x ku dar 3 haddana midkaan aan dhiganaynaa haddana negative 4 baan waxaan ku bedelaynaa 4 baan ku bedelaynaa x baan ka wadaa x baan waxaan ku bedelaynaa negative 4. marka muxuu la mid yahay dhankan eber soo maaha. negative x waxaad ku dartaa 3 negative waxaan ka wadaa negative 3 ku dar 3 negative 3 lagu daray 3 waa eber. haddana waa isku dhufasho sababtoo ah calaamadii parenthesis baa u dhaxaysa. negative 4 ku dar 4 negative 4 lagu daray 4 waa eber asagana. marka eber ku dhufo eber lagu dhufto waa eber. marka soo maartid equationka ama isla egta way saxsan tahay. tusaalahan waan tirtiraynaa waxaan suubinaynaa tusaale kale aan suubinaynaa. tusaale kale tirtir. hadda waxaan suubinaynaa tusaalahan x square laga jaray 12x wuxuu la mid yahay eber ayuu la mid yahay. marka waxaan ka doonayaa xarafku x yahay waa inaan soo helnaa. waxaan ka wadaa xarafka x lambarku yahay waa in aan soo helnaa. marka ugu horeysa waxaan subinaynaa dhankan ayaan factor garaynaynaa. marka waa maxay labadan x square iyo negative 12x waa maxay greatest common factorka waa maxay ama lambarka ugu weyn ama xarafka ugu weyn ee wadaagaan waa maxay? waa x weeye. marka x negative waxa ka wadaa x square u qaybi x square loo qaybi x waa x weeye. x square for x square haddana negative 12 x ku qaybi waa eber maxaa la jiray. marka saasuu noqonayaa x waxa ku dhuftaa 12 waa sida waa factor garayn. haddii noqon si loo factor gareeyo waxa taa video kale oo ku saabsan sida waxa loo factor gareeyo daawo polynomialska. marka hadda x maxay tahay waa maxay lambarka x waa eber sababtoo ah eber haddii aan ku dhufano
x waa eber meeshaan waa eber x waxay la mid tahay eber ama aad qoranaysaa haddana or baad qoranaysaa or x waxay la mid tahay haddana or x waxay la mid tahay x waxay la mid tahay hadda bal fiirso waa maxay lambar markii lagu daro markii laga jaro 11 eber ka dhigaya waa maxay meeshaan lambarkaas waa 11 sababtoo ah 11 haddii aad ka jirto 11 eber baa soo baxaya marka hadda u fiirso waxaan subinaynaa midkaan baa waxaan ku bedelaynaa waa hubinaynaa inaan saxsannahay hadda x waxay la mid tahay eber ama x waxay la mid tahay 11 labadaanba waa solutionka ama xalka isla egtaan ama equationkan marka hadda waan hubinaynaa eber baa waxaan ku bedelaynaa 11 haddana 11 baa waxaan ku dhufanaynaa maya okaadi hadda x hadaa ku bedelno 11 oo kale x bal u fiirso 11 hadaa ku bedelno waxaan ka wadaa xtan hadaa eber ku bedelno aan subina sidaan oo kale maya okay waxaan subinaynaa 11 xtan waa eber marka eber baan dhiganay xtanna waxaan ka dhignay 11 ama 11 haddana saas dheh kala jar 11 ka jar waa eber marka eber weeye marka eber ku dhufo eber ku dhufo waa eber marka equationkan way saxsan tahay ama solutionkeeda waa sax markaan hubinay soo ma aragtid marka labada dhanba equationka ama labada dhinac ee equationka waxay ka tahay eber ayay ka tahay ama 0 tusaalaha tartarayna waxaan subinaynaa mid kale hadda waxaan subinaynaa tusaalahan wuxuu leeyahay x plus 4 x lagu daray 4 haddana x laga jaray 4 waxay la mid tahay 9 marka ugu horeysa waxaan subinaynaa quadratic equationka waa in uu dhan ahaada 0 waa inuu 0 ahaada marka ugu horeysa waxaan subinaynaa kanoo kale waxaan subinaynaa isku dhufanaynaa kadibna dhanba waxaan ka dhigaynaa 0 saas baa subinaynaa marka hadda x sida polynomial dhankan baa isku dhufanaynaa marka x waxa ku dhuftaa x lagu dhufta x waa x square way x waxaad ku dhuftaa negative 4 x lagu dhuftay negative 4 waa negative 4x way hadda 4 waxaad ku dhuftaa x 4 lagu dhuftay x waa 4x way 4x markuu saas yahay 4 waxaad ku dhuftaa negative 4 lagu dhuftay negative 4 waa negative 16 waa negative 16 markuu saas yahay wuxuu la mid yahay 9 Soomaalian dhankan 9 buu ka ahaa hada waxa subinaysa collecting like terms ay subinaysa ama like terms ka ayaa collect gareynaysa waxa subinaysa lambarada isku xarfa ah iyo exponentigood isku mid yihiin ayaad isku duwaysa ama collect gareynaysa marka x like terms ma haysato x square ma haysato negative 4x iyo 4x waa laba like terms marka negative 4x ku dar 4x negative 4x ku dar 4x waa eber marka dhanka waxaan marka inta wax ku soo haray 16 ayaa ku soo haray 16 waxay la mid tahay 9 marka si aan equationkan aga dhigno dhan 0 aga dhigno ay u noqoto quadratic equation sa u noqoto waxaan subinaynaa lambar 9 baa labada dhinacba ka jaraynaa marka inta wax ka jarta 9 inta wax ka jarta 9 9 ka jar 9 ka jar waa eber dhankan waa sida rabnay uu noqday x square dhigo x square tan negative 16 ka jar 9 negative 16 laga jaray 9 waa negative 25 markuu saas yahay hadda dhankan baa factor gareynaysa marka halkan buu soo keenna halkan keen dhankan x square laga jaray 25 wuxuu la mid yahay eber marka factor gareynaysa hadii la factor gareeyo wuxuu noqonayaa kan waa difference of square sababtoo inta waa square inta waa square hadii la factor gareeyo wuxuu noqonayaa markii la factor gareeyo wuxuu noqonayaa sidaas ayuu noqonayaa ka jar 5 wuxuu la mid yahay eber marka x waxay la mid tahay meeshan maxaa eber ka dhigay x waxay la mid tahay negative 5 ama x waxay la mid tahay ama x waxay la mid tahay ama x waxay la mid tahay negative hadii aan 5 ka jarna 5 waa eber noqonaya marka waxay la mid tahay 5 waa hubin karnaa marka solutionku wuxuu noqday x waxay la mid tahay negative 5 ama x waxay la mid tahay 5 waa solutionka midkan ama xalka hada waa hubin karnaa hadii aad rabtid ma hubinaa
bal kan waxa suubisa negative 5 waxa ku bedeshaa x negative 5 marka x ku bedeshid negative 5 hada waxa ku dartaa 5 waa eber 5 taad x aan ku bedeshid 5 ka jar waa eber marka dhankan ba eber ku noqonaya equation ka dhankan marka eber is equal to eber waa sax marka salaha tatrayna waxaan suubinaynaa mid kale hada waxaan suubinaynaa salahan negative 6 x square lagu daray 7x laga jaray 20 wuxuu la mid yahay eber markuu goraysa marka hore bal fiiri leading coefficient-ga oo waa negative 6 marka waa ina positive ka dhignaa marka waxaan suubinaysaa waxaad ku dhufanaysaa negative 1 ba ku dhufanaysaa dhankaan oo dhan ama equation-ka dhan walba negative 1 ba ku dhufanaysaa so positive u noqdo leading coefficient-ga kan way leading coefficient sababtoo ah x square ka dambeeya okay negative 1 ba waxa ku dhufanaysaa 6x square hadana waxaad ku dhufanaysaa 7x ba ku dhufanaysaa 7x hadana waxaad ku dhufanaysaa negative 20 waxa ku si kala waxa kala ku si dhufanaysaa eberkan waa ku dhufanaysaaba negative ka yaaway negative 1 ku dhufo negative 6 waa 6 positive 6 way square hadana okay maya negative 1 ku dhufo 7x negative 1 lagu dhufto 7x waa negative 7x negative 1 ku dhufo 20 negative 1 lagu dhuftay 20 negative 20 ba ka wada negative 1 lagu dhuftay negative 20 waa positive 20 waa positive 20 negative 1 ku dhufo 0 waa iska 0 day hada waxa subinaysa dhankan ayaa factor gareynaysa marka dhanka hadii la factor gareeyo wuxuu noqonayaa 2x wuxuu noqonayaa 2x laga jaray 5 dhankan baa factor gareynayna trinomialkan wuxuu noqonayaa okaade 3x laga jaray 2 ayuu noqonayaa wuxuu la mid yahay 0 marka hada waxa laga doonayaa inaad dhankan markii sas inuu inta 0 noqdo ama inta 0 noqdo marka x tan baa xalinaysa marka waxa subinaysa hada waa maxay 2x hadii laga jaro 2x hadii laga jaro waa maxay number oo aan 2x ka dhigna hadii laga jaro 5 noqonaya eber ka dhigay meeshan waa number 5 way 5 ta ka jirta 5 marka 2x waxa la mid tahay 5 marka ama aad qoranaysa hadana ama ayaad qoranaysaa or hadana u fiirso intana waxaad subinaysaa 3x waxay la mid tahay number 2 sababtoo ah 2 hadii laga jaro 2 waa eber ka dhigaya marka sidii equation caadi ah baa shaqeynaysaa mislaag caadi ah marka si aan x gooni u geyno lambarradan gooni isku geyno waxaan subinaynaa inta waxaan u qaybinaynaa lambar 2 ayaan u qaybinaynaa labada dhanba inta waxa u qaybisaa 2 qayb waa hal marka dhanka waxaan ugu soo haray x waxay la mid tahay 5 over 2 ay la mid tahay or ayaad qoranaysaa or ama x waxay la mid tahay hadda u fiirso 3x tan waxay la mid tahay 2 waxaan doonaynaa inaan x ta meel geyno lambaradana dhinac isku geyno marka waxaad subinaysaa 3 ba labada dhinacba u qaybinaysaa si aad x dhan u geysid lambaradana dhan isku geysid marka 3 u qayb 3 loo qayb 3 waa hal marka dhanka waxaan ugu soo haray x 2 u qaybi negative 2 u qaybi 3 waa iska 2 over 3 way marka final answer kaagu wuxuu noqday x waxay la mid tahay 5 over 2 ama or x waxay la mid tahay maxaa la jiray 2 over 3 ay la mid tahay ashirkan oo ah solving quadratic equations oo la factor gareynayo meeshaas ay ku dhamaaday waa la joojinayaa miyaa